Wakiilada dadka naafada ee 17 degmo gobolka Banaadir ayaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku yeeshay kulankani ayaa waxa uu ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxaana looga hadlayay xaaladda guud ee dadka naafada. Wakiiladii ka soo qayb galay kulankani ayaa waxa ay sheegeen in dadka naafada ee ku nool 17 degmo ee gobolka Banaadir ay haysato xaalado bini'aadanimo oo aad u daran. Kulankani ayaa waxa la isku raacay in dadka naafada ay qabsadaan kulan heer sare ah oo ay ka soo qayb galaan madaxda dawladda federaalka iyo hay'adaha samafalka. baaqan aan soo jeedinayna maanta waxay ku saabsan tahay sidaan naafo ay wax u qabsan lahayd annaga aan qabsano ragnimadeena aan ku qabsano maalinta 3 December oo ah maalinta naafo weynta caalamka sidii aan uga tashanaynay maalintii naafada adduunka oo nagu soo wajahan 3 December annagoo ka kooban 17 degmo iyo maamulo kale oo guddiyaal kale oo maarta ururo kale oo naafada dadka saacida kamid ah waxaan ballan qaaday anigoo ku hadlaya afka gudoomiyaha naafada degmada Kaaraan inay 17 degmo naafada maamulkeeda ay maartay munaasabad oo lagu weyneynayo maalinta 3 December inaan annaga iyo maamulkeena wadasho u ridano waxay go'aansadeen xaqoodii meel u jiraba inay raadsadaan koow waxaana ugu horeeya 3 December oo soo qaabilsan dhowr maalmood naga xigto waxaan aad u codsanaynaa inaan helo wax naga taageera haddaan weyno wax naga taageera aan weyno awalba dad baa naga taageeri jiray waxaan isku dayaynaa inaan anagu dusha u ridano isna xilqaano ilaa horta mahad leh noo suurto geliyo maanta inaan ku kulano xafiiska degmada Wadajir ilaahayna weyn ka sukoon waxaan uga mahad celinayaa maamulka degmada Wadajir gudoomiyaheeda Mudane Bashiir Maxamed Cali iyo ku-xigeenadiisa sida Xirsi iyo Axmed Diiriye arrimaha bulshada xogayaha degmada Shukr Cali Hiraabe iyo gudoomiye qaybeedyada kale ee degmada Wadajir guudaan baa u mahadnaqayaa taasoo suurtagal nooga dhigtay maanta xafiiska degmada Wadajir ee dadka naafada ah in ay naafada kale ee gobolka Banaadir isugu timaado isla markaasna ay uga hadlaan wax ay quseeya ama danahooda waxaan ugu waaweynaa 3 December oo ah maalinta naafada adduunka oo nagu soo fool leh qaabkii aan uga qayb gali lahayn oo maalinta 3 December aan u maamuusi lahayn